السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بندقيني ما ogtahay qaybtii 8 ma ogtahay tirada ugu yar ee quraanka lagu xusay inay tahay hal loo qaybiyay 10 qaybood ayna ku xusan tahay aayadda 34 ee suuradda 7 wama balaqu mi'shara ma aataynahum. tirada ugu badan ee quraanka lagu xusayna ay tahay 100,000 ayna ku xusan tahay aayadda 147 ee suuradda as-saafaat wa arsalnaahu ila 100,000 aw yaziidun. ma ogtahay علي بن أبي طالب إنه كبحي مid kamida gacanta fitno wadayaashii dagaalada oogayay ee muslimiinta ka dhex shaqeynayay ee la magac baxay khawaarijta oo la oran jiray Cabdiraxmaan ibn Muljim. ma ogtahay in Ibliis uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka ku xusay 11 jeer ka magangalkiisana uu Ilaahay quraanka ku xusay 11 jeer. ma ogtahay dalka Soomaaliyeed in uu yahay dalka ugu qanisan dawladaha ku midoobay jaamacadda Carabta. ma ogtahay bisha Ramadaan inay tahay bisha kaliya ee ay soontu waajibka tahay hal marna quraanka lagu xusay magaceeda. ma ogtahay in bulshada Soomaaliyeed ay waayahan muusigii iyo heesihii wax caadiya la noqdeen oo ay xalaashadeen taasina ay muujinayso inaynu badheersanahay oo wixii Ilaahay naga xarimay aynu xalaashanay. taas macnaheeduna uu yahay in aynu aqbalno wixii ciqaaba ee aynu kala kulanno dhagaadeygeenaas ha ahaato cudurro ama macaluul ama dagaalo ama abaaro. ma ogtahay aayadda laga helayo dhammaan xuruufta higaada ee afka Carbeed inay tahay aayadda 29 ee suuradda al-Fatxi ee ka bilaabanta Muhammadur Rasuulullah. ma ogtahay in qaadku uu yahay aafo saameyn baan ku yeelatay haldoorkii u soo bixi lahaa bulshada Soomaaliyeed oo hacooyo uu ka dhigay balse uu yahay balaayo ku gudban oo haddii uu isagu meesha ka baxo masiibo ka weyn oo daroogo iyo wax kale oo la mid ahi ay imanayaan. ma ogtahay in ereyga cirka quraanka lagu xusay 310 jeer, dhulkana 228 jeer, buurahana 40 jeer. ma ogtahay Soomaaliya inay kaalmaha ugu horeeya ka gashay wadamada ugu dhaqaalaha badan uguna xasiloon ee ugu nabadgelyada badan caalamka sanadihii 1975 iyo 1977.